kulanti habboon daawadayaal halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdirashiid Jaran oo laga dajiyay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya kadib markii looga cabsaday in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku weeraraan gudaha magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya midowga Afrikana waxa uu ballan qaaday inuu door muhiim ah ka qaadan doono dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Kenya loo sameeyo isla markaasna midowga Afrika uu doorka ugu muhiimsan qaadanayo hogaankii Ahlusunnah wal Jamaaca ee looga adkaaday deegaanada Galmudugna waxay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland uga dhawaaqeen in la sameeyo isbahaysi weyn oo ka dhana dawladda Soomaaliya si wax looga qabto xaaladda wadanka siyaasiga Faarax Macalin waxa uu ka hor yimid hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsanaa in dawladda Soomaaliya ciidamadeedu ay ku xadgudbeen madaxbannaanida dalka Kenya asagoo eedeynta dusha ka saaray dawladda Kenya garab istaagana Soomaaliya maamulka Puntland waxa uu sharaxaad dheer iyo ka baxshay shirweyne looga soo horjeedo dawladda Soomaaliya oo lagu qabanayo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland waxa uu amray in si weyn loo adkeeyo ammaanka magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland sababtu waa maxay wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan akhbaaraadka ka baxsan wararka Soomaalida aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah Maxamed bin Salmaan oo xiray 3 kamid ah amiirada ugu sareeya boqortooyada xilli ay halis soo wajahday intaasi waa qayb kamid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV daawadaya meel walba dunida daafaheeda aad naga dheehanaysaan waqti wanaagsan kulanti waana wanaagsan idilkiin ba halkani waa Garaa TV fadlan daawada dad joogto xilliga salaada soo tuka waajibka la dibna oo bilowna duwaawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Jaran iyo madaxweyne ku-xigeenkii koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa laga dajiyay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya kadib markay soo wajahday cabsi ku aadan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku weeraraan gudaha magaalada Mandera diyaarad qaas ah ayaa looga qaaday magaalada Mandera waxaana la geeyay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya ayadoo labadaasi mas'uulna halkaas ay kula qaadan doonaan madaxda dalka Kenya sababta ayaa ka dambeysay kadib markay ciidamada dawladda Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya taas oo sababtay in Cabdirashiid Jaran iyo Maxamuud Sayid Aadan looga cabsado in ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku weeraraan gudaha magaalada Mandera isla markaasna loo qaaday magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya si looga fageeyo ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa horay uga itaaroonaday ciidamadii maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayay Cabdirashiid Jaran isla markaasna gacanta ka helaya dawladda Kenya iyagoo ku goodiyeen meel walba ay joogaan ay uga daba tagayaan diyaaradda lagu qaaday labadan mas'uul waxa uu soo dirtay dawladda wadanka Kenya waxayna la xiriirtay kadib sababa cabsi oo dhanka amaankooda sidoo kale tan waxay arintan salka ku haysay walaa xoogan oo ay muujiyeen hogaamiyaasha gobolka Waqooyi Bari oo ku aadan in ammaanka magaalada Mandera oo halis ku jiro wadaan magaaladaasi laga wadin madaxda sarsare ee maamulka Jubbaland ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa iyagu kaawiga ku haya magaalada Mandera ee wadanka Kenya halkaas oo laga cabsi qabay maalmihii ugu dambeysay in iska horimaad uu ku dhaxmaro ciidamada dalalka Soomaaliya iyo Kenya balse dawladda Kenya waxay iminka u muuqataa in Cabdirashiid Jaran iyo Maxamuud Sayid Aadan ay ku aaminin weysay amaankooda magaalada Mandera isla markaasna ay geysay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya dawladda Kenya ayaa dhowr jeer ugu eedeeyay in taageero xoogan siinayso maamulka Ahmed Madoobe isla markaasna ay ciidamada qarameynayso ayna hub gaar ah siinayso si ay ula dagaalamaan ciidamada dawladda Soomaaliya
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu Kenya ku tilmaantay inay ku soo xadgudubto madaxbannaanida Soomaaliya iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed maadaama ay soo qarameynayso isla markaasna ay hub iyo saanad military siinayso ciidamada maamulka Jubbaland isla markaasna ay taageerayso mas'uulka baxsadka ka ah dowladda Soomaaliya ee Cabdirashiid Janan si kastaba ha ahaatee dowladda Kenya waxay iminka u muuqataa inay qaaday tilaabo weyn oo ay ku badbaadinayso Cabdirashiid Janan iyo Maxamuud Sayid Aadan kuwaas oo amnigoodu qalqal u galay maalmihii ugu dambeysay isla markaasna ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku baacsanayeen gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Midowga Afrika ayaa ballan qaaday inay door muhiim ah ka qaadanayaan dhexdhexaadin loo sameynayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya si xiisada loo dejiyo. gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa walaac ka muujiyay xiisada Soomaaliya ku soo laalaabatay iyo Kenya u dhaxaysa wuxuuna sheegay in Midowga Afrika ay qaadanayaan door muhiim ah. gudoomiyuhu wuxuu ka codsaday dhammaan badanayaasha in xiisada la xakameeyo isla markaasna lagu dhiirado in labada dal ay khilaafkooda ku xaliyaan wada hadal. waxa uu sheegay Midowga Afrika oo kaashanaya beesha caalamka uu sii wadi doono inuu si dhow la socdo xaaladda labada wadan isla markaasna uu ku dadaalayo sidii looga baaqsan lahaa in gacan ka hadal kale uu dhaxmaro labada wadan. gudoomiyuhu wuxuu mar kale xaqiijiyay inuu diyaar u yahay in Midowga Afrika uu taageero labada wadan inay yeeshaan wada hadal wax ku ool ah isla markaasna lagu hogaaminayo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo daris wanaaga iyadoo la waafajinayo astaamaha iyo sidoo kale mabaadi'da Midowga Afrika. labadii bilood ee la soo dhaafay waxay soo tarayay xiisada u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo cirka isku sii shareeraya isla markaasna ay labada dawladood eedayn hawada isku marsiinayeen. Midowga Afrika waxa uu sheegayaa iminkan asagu door muhiim ah oo ka qaadanayo sidii dhexdhexaadin loogu sameyn lahaa labada wadan loogana hortagi lahaa gacan ka hadal dhaxmara dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo iminka qarka isku saaran in ay isku dhacaan. Midowga Afrika ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay nabadgelyada iyo danis wanaaga dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo ku yaala bariga Afrika iyagoona ugu baaqay qof walba oo ka qayb qaadan kara xalinta xiisada labada wadan u dhaxaysa inuu istaago. hogaamiyaasha al-sunna wal jameeca looga adkaaday siyaasadda iyo gacan ku haynta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland uga dhawaaqay in la sameeyo isbahaysi ka dhana dowladda Soomaaliya oo aad u ballaaran. magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayay kulamo kala duwan saacadii la soo dhaafay kula yeesheen madax ka tirsan maamulka Puntland waxaana ugu dambeyntii ay sheegeen in loo baahan yahay in la sameeyo isbahaysi weyn oo ay ku jiraan dhammaan dadka mucaaradka taas oo dowladda Soomaaliya lagu cadaadinayo meeshana looga saarayo awoodeeda siyaasadeed iyo hanka ay ka leedahay doorashooyinka soo aadan ee sanadka 2021. isbahaysiga iyo dadaalka ka socda magaalada Garowe ay wado al-sunna wal jameeca waxa hogaaminaya hogaamiyaha sare ee ururkaasi Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo asagu markii hore sheegay inuu siyaasadda ka tanaasulay balse markuu tagay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland bilaabay howlgallo iyo sidoo kale kulamo uu ku raadinayo awood siyaasadeed oo kale mar kale uu ku wajaho dowladda Soomaaliya. ururka al-sunna wal jameeca madaxdiisu waxay sheegeen in lagaba maarmaan tahay in la qaado tilaabo kale oo dowladda Soomaaliya lagu xakameynayo awoodeeda loogana hortagayo inuu wadanku ka baaqsado inay gacanta ku sii hayaan madaxda iminka talada hayo oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwa ku fashilma siyaasadda doonayana inay wadanka ku sii maamulaan awood siyaasadeed. Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Mashaakir Cali Xasan ayaa kulamada ka dhacaya magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland garwadeenka waxayna arrintan ku soo aadaysa iyadoo maamulka Puntland uu ballan qaaday inuu saldhig military siinayo ururka al-sunna wal jameeca si ay u abaabulaan dagaal kale oo ka dhana dowladda Soomaaliya oo lagu qaado magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee dowladda Soomaaliya ay al-sunna uga guuleysatay kadib dagaal dhaxmaray labada dhinac. hogaanka al-sunna wal jameeca ayaa wada dadaalo xoogan oo ay ugu jiraan sidii u heli lahaayeen taageero ku aadan in dowladda Soomaaliya mar kale ay weeraraan isla markaasna ay siyaasadda iyo sidoo kale masiirka deegaanada Galmudug ay gorgortan kula galaan. dowladda Soomaaliya ayaa dagaal la gashay al-sunna wal jameeca kadib markii ay hor istaageen isku dayada dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku sameyso Galmudug loo dhan yahay taas oo keentay in meesha laga saaro ururka al-sunna wal jameeca dowladuna ay adeegsato awood ciidan oo ay ku burburisay dhamaanba sanadii iyo sidoo kale ciidamadii ay haysteen ururkaasi. maamulka Puntland ayaa sharaxaad dheer iyo ka baxshay shirweyne looga soo horjeeda dowladda Soomaaliya
oo ka qabsoomaya magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabaarad oo sharaxay shirka 15 bishan lagu qabanayo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid muhiim ah. dhamaan cad waxa uu dowlad goboleedka Puntland dadkiisa ka dalbaday inaysan walwal ka muujin shirkaasi oo iskugu tagayaan saamileyda siyaasadeed ee dowlad goboleedka Puntland si ay uga arrinsadaan doorka Puntland ay ku leedahay dowladnimada Soomaaliya. shirka oo ka dhacaya magaalada Garowe 15 bishan waa mid waxtar ah. Puntland waxa ay ku soo kordhin doontaa in ay ka tashato ayada isla markaasna dowladda Soomaaliya doorka ay ku yeelanayso ay ka wada hadlaan saamileyda siyaasadeed ee Puntland ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Puntland Master Dhamarcad. asagoo sii hadlayay waxa uu tilmaamay in shirka ay ka qayb galayaan madaxda talada haysa saamileyda siyaasadeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno kale oo uusan sheegin balse ka qayb galaya shirka isla markaasna imaanaya magaalada Garowe. guddiga madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo wixii saaray shirka magaalada Garowe ayaa waxa uu sheegay in qabanqaabada soo dhaweynta wafuudda ka qayb galaysa shirkaas ay meel wanaagsan marayso. waxaana sheegeen inay dhawaan rajeynayaan in la soo gabagabeeyo wafuudda shirkaasi ka qayb galaysa oo imaanaya magaalada Garowe si awood loogu helo in shirkaasi uu qabsoomo ugu dambeyn 15 bisha isla markaasna ay iskugu yimaadaan dhammaan badanayaasha Puntland iyo saamileyda siyaasadeed. Puntland ayaa laga cabsi qabaa in shirkaasi ay ka soo saarto qodobo lid ku ah qaranimada Soomaaliya. waxaana markii hore walwal ka muujiyay dad indheergarad oo arrimaha Soomaaliya ka faalooda kuwaas oo sheegeen maamulka Puntland uu raadinayo dana siyaasadeed oo ka weyn dowladda Soomaaliya loona baahan yahay in laga hortago intii shirkaasi aan looga dhawaaqin falal ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya. maamulka Puntland oo hogaaminaya Siciid Cabdullaahi Dani ayaa tan iyo markii la doortay waxa khilaaf uu kala dhaxeeyay dowladda Soomaaliya waxaana dowladda Soomaaliya arintani ku noqotay laf dhuun gashayadu xal u weysay in maamulka Puntland uu taageero dowladda Soomaaliya isla markaasna Dani laga bedelo mowqifkiisa mucaaradnimo ee ku aadan arrimaha dowladnimada Soomaaliya. siyaasiga Faarax Macalin waxa uu ka hor yimid hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta asagoona sidoo kale taageeray dowladda Soomaaliya garab istaag xooggan u muujiyay. gudoomiye ku-xigeenkii horeeyay ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka difaacay eedayn uga timid madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta taas oo ahayd in Kenya ay ku soo duulaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Uhuru ayaa qoraal uu soo saaray Arbacadii horeeyay ku sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku xadgudbeen madax banaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 Maajo sanadkan 2020 halkaas oo ciidamada ajaanibka ay jabiyeen isla markaasna ixtiraami waayeen xeerarka caalamiga iyo dhaqdhaqaaqyada gardarada ay ka fuliyeen xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ku burburiyeen hanti ay lahaayeen shacabka dalka Kenya ee ku nool magaalada xuduudka ee Mandera. hase yeeshee Faarax Macalin ayaa sheegay in Uhuru Kenyatta uu leeyahay sabab kaseeto Mandera lagu weeraray iyo in ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ay yimaadaan maadaama uu martigeliyo hogaamiye kooxeed baxsada oo halkaasi weerar ka soo qaadaya sidoo hadalka u dhigay. Kenya waxay hubaysay hogaamiye kooxeed baxsada waxayna intaasi kadib hogaamiye kooxeedka u ogolaatay inuu gudaha u galo Kenya una ka weeraray Soomaaliya waxayna taasi qasabtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka jawaabaan inay isdifaacaan isla markaasna ay u soo gudbaan xadka Soomaaliya iyo Kenya si ay uga hortagaan weerarada hogaamiye kooxeedka uu ka qaadayo gudaha dalka Kenya una ku qaadayo gobolka Gedo. waxaana sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya aysan gardarada lahayn balse ay leedahay dowladda Kenya. Faarax Macalin ayaa qoraalkiisa ku sheegay in gobolka uu qalalaaso lugaha la sii galayo loona baahan yahay in Uhuru Kenyatta inuu bedelo xeeladiisa siyaasadeed. Faarax Macalin ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada maamulka Jubbaland laga saaro magaalada Mandera dowladda Kenya ay qaadato xeelad siyaasadeed oo ka bedela midda iminka ay wado isla markaasna ay ku badbaadinayso shacabka degan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ee dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mandera kuwaas oo la daalaa xiisada u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Faarax Macalin ayaa kamid ah mucaaradka dowladda Kenya waxaana sanooyinkii ugu dambeysay taageeraya dowladda uu hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
wuxuu sheegay in loo baahan yahay ciidamada dowladda Soomaaliya la taageero lagana hortago wax walba habacsanaan ku keenaya xiriirka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya balse aysan suurtagal ahayn in dowladda Kenya ay martigeliso hogaamiye kooxoodyo baxsada sidoo hadalka u dhigay ammaanka magaalada Kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo amarkaasina uu bixiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa amar ku siiyay inay adkeeyaan ammaanka magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in Kismaayo ay noqotay maalmihii ugu dambeysay goob ay ku wada sugan yihiin mucaaradka Jubbaland iyo sidoo kale maamulkuba loona baahan yahay in ammaanka la adkeeyo si halkaas looga abaabulin qalalaaso looga soo horjeedo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada magaalada jooga ay guud ahaanba ammaanka xakameeyaan ay qaadaan tallaabo walba oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Kismaayo Ahmed Madoobe ayaa u muuqday inuu ka foojigan yahay in madaxda ka soo horjeeda ee ku sugan magaalada Kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland ay sameeyaan falal looga soo horjeedo maamulka Ahmed Madoobe taasoo ciidamada Jubbaland durbadiiba heegan loo galiyay isla markaasna ay iminka u muuqdaan inay adkeeyeen guud ahaanba ammaanka magaalada Kismaayo qaar ka mid ah saraakiisha warbaahinta la hadla waxay sheegeen in ciidamada ammaanka la amray inay xoojiyaan looga goleeyaa sidii looga hortagi lahaa falalka amni dar iyagoo sheegay in dhan walbaba amni darradu ay ka imaan karto ay ugu horeeyaan ururada argagixisada isla markaasna ciidamada Jubbaland ay diyaar u yihiin inay gacan bir ku qabtaan cid walba oo ka soo horjeeda maamulka Jubbaland iyo dowladnimada Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay Ahmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa saraakiisha Kismaayo ku amaanay sidii ammaanka u xaqiijiyeen waxaana sheegay in loo baahan yahay in si dardargeliyaan oo ay ammaanka gacan bir ku qabtaan si looga hortago wax walba oo suurtagal ah inay ka dhacaan Kismaayo Ahmed Madoobe ayaa dowladda Soomaaliya khilaaf kala dhaxeeya wuxuuna iminka u muuqdaa inuu dhan walba dowladda Soomaaliya ay ka soo gali karto oo il gaar ah ku hayo uuna ka hortagayo wax walba dowladda Soomaaliya ay xeeladaysan oo ay u dhigi karto maamulkiisa ciidamada ku sugan deegaanada Jubbaland ayaa heegan buuxa la galiyay si uu amarkaasi ku bixiyay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kaas oo kaga golay sidii loo adkay lahaa deegaanada iminka ay gacanta ku hayso Jubbaland gacan ku hayntooda loogana hortagi lahaa cid walba oo soo abaabusho far looga soo horjeedo maamulka Jubbaland wali waxaad daawanaysaan wararka Garaa TV daawadayaal meel walba oo dunida daafeeda naga dheehanaysaan waqti wanaagsan iminkana akhbaraadkii caalamka Maxamed bin Salman ayaa xiray 3 kamid ah amiirada ugu sareeya boqortooyada xilli ay soo wajaheen arrin halis ku ah mustaqbalkiisa siyaasadeed dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa xiray 3 kamid ah amiirada ugu sareeya qoyska boqortooyada oo iskugu jira boqorka walaalkiisa iyo dhaxal sugihii horeete tilaabadan ayaa loo arkaa mid Maxamed bin Salman uu ku xoojinayo awoodiisa iyo sidoo kale inuu arko halis ku soo socoto dhanka siyaasadda xarigan waxaa shaaca ka qaaday xubno ka tirsan qoyska boqortooyada oo la hadlay wargeyska New York Times sidoo kale tan waxaa sargaal horeete oo sare ka tirsan Mareykanka uu xaqiijiyay xariga mas'uuliyiinta ka tirsan boqortooyada xubnaha la xiray waxaa ugu sareeya Amiir Ahmed bin Cabdilcasiis oo ah walaalka ka yar boqor Salman kaas oo mar loo arkayay inuu yahay rajada boqortooyada iyo inuusan ogoleen in Maxamed bin Salman uu la wareego kursiga waxaa sidoo kale la xiray Amiir Maxamed bin Nayef oo ahaa dhaxal sugihii horeete iyo wasiirka arrimaha gudaha boqortooyada kaas oo xiriir wanaagsan la lahaa sirdoonka Mareykanka intuu xilka hayay bin Nayef ayaa labadii xil oo laga qaaday waxaana ka qaaday Maxamed bin Salman sanadkii 2017 kaas oo la geliyay xabsi guri markaasi kadib waxaa sidoo kale la xiray walaalkiis ka yar Amiir Nayef bin Nayef mid kamid ah sababaha la rumaysan yahay Maxamed bin Salman uu xiray amiiradan ayaa ah gabowga abiis boqor Salman oo hadda 84 sano jira waxaa loo arkaa in Maxamed bin Salman uu doonayo inuu xabsiga sii dhigo shakhsiyaadka uu arko inay ka hor imaanayaan inay ka hor yimaadaan xukunkiisa isla markaasna ay xabsiga ku sii jiraan ilaa inta uu ka wareegayo si aan kursigiisa muran loo gelin Amiir Ahmed ayaa si kastaba waxa uu muujinayaa wax kasta oo uu damacsan yahay
inuu kula kulmo Maxamed bin Salmaan. Amiir Axmed ayaa walaalka kaliya ee la dhashay boqor Salmaan ee weli nool. dowladda Sacuudiga kama aysan hadlin xariga xibnahan, isla markaasna safaaradda boqortooyada ee Washington ayaa wax laga weydiiyay waxayna diiday inay ka jawaabto arrintaasi. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa u muuqata mid haddii uu dhinto boqor Salmaanka iminka maamula loolan adag la kulmaysa, waxaana Maxamed bin Salmaan uu gabi ahaanba xabsiga sii dhigaya cid walba u arko inay xukunkiisa lid ku tahay inuu la wareego boqortooyada. Sacuudiga ayaa dal qaniya isla markaasna ku yaala wadamada Khaliijka, waxaana doonayaa Maxamed bin Salmaan inuu wax badan ka bedelo arrimaha siyaasadda iyo dhaqan caadeedka laga yaqaan wadanka Sacuudi Carabiya. wuxuu mar horeetaba furfurnaan uu ku keenay siyaasadda, arrimaha gudaha iyo sidoo kale dhaqanka, iyadoo uu furay goobo dalxiis iyo sidoo kale goobo kaleete oo muusiga lagu ciyaaro, taasoo muujinaysa in wax badan ay iska bedeleen arrintii lagu yaqaanay Sacuudi Carabiya. boqortooyada Sacuudiga mas'uuliyiintooda waxay dalalka caalamka u ballan qaadeen inay muujin doonaan furfurnaan siyaasadeed xilli dunidu ay sii horumarayso, isla markaasna ay isdhexgal bulsho la sameynayo. Sacuudigu oo qani ku ah shidaalka waxa uu doonayaa in Maxamed bin Salmaan uu ka dhigo mid dunida oo dhan soo jiita, isla markaasna yeesho goobo ay dadku ku soo tamashleeyaan xilliyada fasaxyada. arrinta Maxamed bin Salmaan ayaa waxay leedahay caqabadeeda kala duwan, waxayna muujinaysaa sida Sacuudigu iminka ugu guuldareysanay siyaasadooyinka qaarkood oo Maxamed bin Salmaan uu muuqdo in loolan xilka uu wajahayo, isla markaasna ay jiraan dad kaleeto xilka dhaxal sugaha ku haysta, isla markaasna doonaya inay xilka la wareegaan. balse awoodda aabihiis ayuu adeegsanayaa, wuxuuna xabsiga dhigayaa cid walba u arko inay ka hor imaan karto xukunkiisa. guud ahaanba wararka aad ka daawanayseen Garaa TV waa intaas, inta ku kulmi doono wararkan warar la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.